Bismillah kusoo dhawaada ardayda imtixaankii ugu dambeeyay ee fasalka afraad dugsiga sare gaar ahaan maadada tarbiyada qaybtii koowaad aan iskala soo shaqeynay qaybtii labaad ayaa haddana iskala shaqeynaynaa qaybta labaad waxaa laga rabaa waxay noogu bilaabanaysaa imtixaanka qaybtii saddexaad wuxuu lahaa laba qayb laba qayb ka badan saddex qayb oo lahaa qaybtiisa alif aan soo shaqeynay qaybtiisa ba aan ka shaqeynaynaa jumlad walba oo ka mid ah jumladahan soo socdo waxaa ku qoraysaa xukunkeeda xagga beeca rajulun yabiicu fi suuqi ashyaa masruuqa wa muqtasiba qof ayaa suuqa wuxuu ku iibinayaa waxyaabo la soo xaday ama la soo xoogay marka qofkaas sidaa ah xukunka beeciisa muxuu noqonayaa arday xukunka beeciisa wuxuu noqonayaa xaraam uu noqonaa micnaha wuxuu noqonayaa xaraam alaysa micnaha ama maxaa kaloo dhihi kartaa laa yajuuzuna waa dhihi kartaa daarti laa yajuuzu ma banaan laa yajuuzu saasaa dhihi kartaa waxaadna ku qoraysaa qaanada hore horteeda ku qori midka xiga waxaa waaye rajulun qof yabiicu wuxuu gadayaa silcatuhu badeecadiisi bilxalifi ilkaadib wuxuu ku gadayaa dhaar markaasi oo been ah asna xukunka beeciisa ardayda wuxuu noqonayaa xaraam uu noqonaa ama waxaa dhihi kartaa laa yajuuzu ma banaan midka saddexaad jumlada saddexaad waxaa waaye axadu yaltazimu maya axmedun dheh yaltazimu bishuruudi lbeyc fi jamiici mucaamalaatihi axmed dhammaan mucaamalooyinka uu sameynayo shuruudul beyc ayuu laazimaa uu joogteeyaa kama tago beeciisa wuxuu noqonayaa in shuruudahaas la joogteeyo oo sidaa wax lagu iibsado waxay noqonaysaa xukunkeeda waajib ha ku qoraysaa ama sidoo kale waxaa kaloo dhihi kartaa jaa-isna waa dhihi kartaa way banaan tahay midka xiga waxaa waaye takhfiiful wasn in la fududeeyo wasanka bil ashyaada cinda albeyc beeca agtiisa in markaasi dadka miisaanka lagu gaado oo miisaanka la fududeeyo arday beecaas xukunkiisa wuxuu noqonayaa xaraam uu noqonayaa ma banaano su-aasha xigta oo shanaad yadkuru cuyuuba silcatuhu linnaas cinda albeyc qofkan micnaha beeciisa badeecadiisa ceebteeda oo dadka u sheegaa inta aysan iibsan ka hor ardayda waxay noqonaysaa xukunka beeciisa wuxuu noqonayaa waajib ama wuxuu noqonayaa jaa-is waajib waa dhihi kartaa oo wax laga rabo waaye inuu dadka u sheego qofka ganacsada ah ama jaa-is waa dhihi kartaa way banaan tahay waa sida markaasi oo xukunka beeca uu ahaa dhan waa jaa-is waxaa usoo gudubnay qaybtii saddexaad qaybtii hoosmaanaysa oo ah xarafka ja wadix masaa'il diyatu adraaf waxaa caddeynaysaa waxyaabahan oo markaasi hadda ay sheegi doono adraaftan ama qaybahan oo ay sheegi doono oo xubnaha jirka ka mid ah diyadooda sheegi waxaa saaran 8 darajo mas'alada koowaad isla fiirino Khalid wuxuu jaray ama wuxuu carabka ka jaray Cumar wuxuuna ugu jaray mindi si kas ah oo weliba ugu jaray
xukunka diyadiisa muxuu noqonayaa? Diyadiisu waxay noqonaysaa diyatun kaamila, diya dhammaystiran la iska rabaa. oo casharka markii oo aad soo marayseen waxaa ku soo marteen waxyaabaha oo jirka xaggiisa oo qofka bini'aadamka ka leh hal xibin adraaftaas haddii manfacadooda la tagsiiyo ama iyaga la tagsiiyo oo iyaga dhan marasha laga baabi'iyo oo tusaale aan la jaro, diyadeedu waxay noqonaysaa diya kaamilay noqonay oo ah 100 min al-ibili, 100 geel ah. Marka ardayga laba shay buu u bannaan tahay inuu dhaho diyatun kaamila inuu ku gaabsado, ama waxaa kaloo u bannaan inuu dhaho 100 min al-ibil. labadaba haddii uu soo qoro jawaabood ardayga way u saxan tahay. Mas'alada labaad, diyada al-mawdixa. Mawdixadana waxaa la dhahaa allatii takshifu al-cadm, dhaawaca markaasi lafta soo muujinaya. Ardayga dhaawacaas diyadiisu waxay noqonaysaa 5 min al-ibil, waxay noqonaysaa 5 geel. 5 xabo geel waa micnaha 5 min al-ibil, 5 geel ah. Sidoo kale su'aasha saddexaad, qadaca rajulun yadu shakhsin aakhar bisakiin. qof kale gacanta wuxuu kaga jaray mindi ayuu kaga jaray. Sidoo kale casharka waxaa ku soo marnay qofka xibnaha uu labada ka leeyahay haddii manfacadooda la tagsiiyo ama iyaga la jaro, diyadoodu waxay noqonaysaa nisfu diya oo ah diya barkeeda. Diyaduna 100 geel ay ahayd, 100 geel haddii la kala bara waa 50 geel. Marka gacmuhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha oo qofka bini'aadamka labada uu ka qabo. Mas'aladan waxay ku leedahay qof ayaa wuxuu sameeyay qof kale ayuu gacanta ka jaray mindiyana ugu jaray. Diyadu waxay noqonaysaa nisfu diya, ama waxaa kaloo dhihi kartaa 50 min al-ibili, 50 geel ah. Diyada al-haashima. Haashimana waxaa la dhahaa allatii waa midda markaasi lafta jebinayso. Dhaawaca lafta jebinayo diyadiisu ardayga waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa 10 min al-ibili, 10 geel ah. Waxaa sidaa ugu baxnay qaybtii saddexaad iyo qaybihii hoos imaanayay oo ilaa 3 gaaraya. waxaa u gudbaynaa al-qismu ar-raabic, qaybta afraad. ajibka jawaab can al-as'ilati al-aatiya, su'aalaha soo socdo. Su'aasha ugu horeysa waxaa man huwa awwalu khalifa bacda wafaati rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. waa kii khaliifkii ugu horeeyay ee muslimiinta ay la mubaayacoodeen geeridii suubanaha kadib. Ardayga jawaab sax waxay noqonaysaa Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaah. saxaabiga lagu magacaabo Abubakar as-Siddiq. Su'aasha xigta, man huwa waa kee. Su'aasha koowaad ayaa waxay iska dul saaran tahay laba su'aal oo kala ah alif iyo ba. waxaa waaye man huwa as-saxaabiyu alladii sumiya bisayfillahi al-masluul. waa kee saxaabiga lagu magacaabo seeftii alle ee markaasi galka ka baxsanayd. Ardayga waxay noqonaysaa jawaabta saxda saxaabiga lagu magacaabo Khaalid bin Waliid. saxaabiga lagu magacaabo Khaalid bin Waliid. sidoo kale su'aasha xigta waxay ku leedahay maanta shakhsan qof ayaa dhintay oo taraka wuxuu ka tagay ummihi hooyadiisa, wa cammahu iyo adeerkiisa, wa jaddatahu iyo ayeeydiisoo ka tagay. qofaa wuxuu ka tagay hooyo iyo wuxuu ka tagay adeer iyo ayeeyo. waxaa lagaa rabaa qof walba oo dadkaas ka mid ah in aad siisid dhaxalkiisa. kow aslul
waxaa noo qoran atarika dadka laga tagay cam iyo jad. Al-ummu, al-cammu, al-jaddatu. Al-ummu hooyo. Marka ugu horeyso qof walba waxaa sheegaynaa nasiibka ama waxaa ogaanaynaa nasiibka ama qaybta markaas asaga uu dhaxal ahaan u leeyahay. Hooyo maxay dhaxal ku qaadataa? Hooyo waxay dhaxal ku qaadataa laba meel. Mar waxay qaadataa sudus oo ah 6 meelood hal meel. Waxay qaadataa 6 meelood hal meel ay qaadataa. Goormay qaadataa? Hooyo sudus waxay qaadataa qofka dhintay oo ay hooyada u tahay markii uu ka taga nin ha ahaado ama naag ha ahaato awlaad ama caruur. Ama qofka dhintay oo in marka ay joogaan walaal asaga dhashay oo markaasi laba ka badan. Hooyo markaas waxay qaadataa sudus ay dhaxal ahaan ku qaadataa. Laakiinse haddii aysan joogin walaalo oo badan oo qofka marxuumka la dhashtay oo laba gaarayo ama ka badan, sidoo kale oo aysan joogin qofka markaasi dhintay cunug oo asagu dhalay ama cunug oo cunugiisa sii dhalay, hooyo markaas waxay qaadanaysaa oo dhaxal lagu siiyaa. Waxay dhaxal ahaan u qaadataa hooyo markaas thuluth oo ah 3 meelood hal meel ay qaadataa. Marka hadda sida mas'alada kaaga muuqato walad ma joogo oo cunug oo meydka dhalay ma joogo. Waladul waladna ma joogo oo ah cunug oo meydka dhalay cunug oo sii dhalayna ma joogo. Walaalo tacadudayna ma joogaan oo walaalo oo qofka marxuumka la dhashtay oo laba ka badanna ma joogaan. Hooyo marku waxay qaadanaysaa maadaama inta aysan joogin waxay qaadanaysaa thuluth oo ah 3 meelood hal meel. Waxay qaadanaysaa hooyo 3 meelood hal meel ay nagartaa thuluth ay nagartaa. Hooyo waxay rabtaa thuluth oo ah 3 meelood hal meel ay rabtaa. Maalka markii 3 loo qaybiyo hal qayb ka mid ah in iyada la siiyo. Meeshana waxaa ku qoraysaa thuluth ku qoraysaa 3 meelood hal meel ku qoraysaa. Sidoo kale al-cam adeer asna dhaxal wuxuu ku qaataa arday adeer asagu wuxuu imaadaa markii uusan joogin qofka marxuumka dhintay aabihiisa iyo sidoo kale walad oo markaasi oo qofka marxuumka dhalay oo wiilal ah markaysa joogin oo imaada asaga. Adeer sidiisaba sahmi gooni ah malahan, kaliya wuxuu maalka ku qaataa wuxuu soo galaa booskii aabbo soo galaa. Haddii uu soo galana kaliya asaga wuu casabeeyaa. Casabanimo bis ayuu wax ku qaataa. Casabana waxaa la dhahaa wuxuu qaadanaa maalka soo haro qaadanaa. Adeer waa casabo cayn aa ku qoranee. Sidoo kale waxaana soo hartay al-jaddatu ayeeyo. Al-jaddadu ayeeyadu laba dhinac ay ka timaadaa. Min qibalil ab way ka timaadaa oo aabba dhinaciisana way ka timaadaa oo aabba hooyadiisa waa ayeeyo. Sidoo kale min qabalil umna way ka imaataayo hooyadeedu waa ayeeyo. Labadu mid doonto baa ahaatee ayeeyadu iyadu waxay degtaa booskii hooyo degtaa. Haddii ay hooyo ay joogtane ayeeyo dhanka hooyo ha ka timaado, hooyo hooyadeed ha ahaato ama aabba hooyadiisa ahaato, wax dhaxal ma yeelanayso oo waa la xijaabaya. Waxaa xijaabayso hooyo xijaabayso. Marka ayeeyo waxaa dhahaynaa waa maxjuub miima ku qoranee. Intaa marka ogaatid kadib hadda waxaa u soo laabanaynaa marka siintii dhaxalka aslul mas'alada asalkeeda. Hadda waxaa noo joogo oo kaliya 3 qof. Waxaa noo joogo 2 qofood. Qofka kalena waa iska soo reebno oo waxaa soo ogaanay inaysan
waxba dhaxal aan ugu lahayn. Labada qof ee noo joogto waxaa waaye hooyo oo rabta thulus maalka markii 3 qayb loo qaybiyo hal qayb kamid ah rabto, iyo adeer oo asna casaba ah oo wixii soo hara qaadanaya. Mas'alada asalkeeda wuxuu noqonayaa waxaa ka dhisanaynaa 3 ka dhisanaynaa. waxaan rabnaa tiro oo markaasi thulus ay ka heli karno. Tiro tan ugu yar oo thulus laga heli karo waxaa waaye waa 3. 3 ka dhisanaynaa. 3 thuluskeeda waa imisa waa hal. waxaan siinaynaa hooyo meeqa noo soo hartay. waxaa noo soo hartay 2 noo soo hartay. 2da soo hartayna adeerka casabeynaa. hooyana waxaa sheegno ayayna waa sheegno maxjuub wax malahan oo dhaxalkii sidaas ayaa ugu qaybinay hooyo iyo sidoo kale adeer. su'aasha xigta waxay ku leedahay ardayga udkur qeex tacriif al-maki min al-qur'aan. al-maki min al-qur'aan maxaa loola jeedaa qur'aanka makiga ah? ardayga jawaab sax waxay noqonaysaa maki waxaa la dhahaa maa nazala midka soo degay min al-qur'aan al-kariim qur'aanka kariimka kamida qabla al-hijra hijrada ka hor soo degay walow bighayri makkah haba ku soo degay meel aan maka ahaynba waxaa loo yaqaanaa maki aa loo yaqaanaa. in bacda al-hijra qabla al-hijra wixii soo degay waxaa loo yaqaanaa arday qur'aan walba oo qabla al-hijra soo degay ama maka ku soo degay ama maka meel ka baxsan ku soo degay waxaa loo yaqaanaa maki aa loo yaqaanaa. marka tacriiftu waxay noqonaysaa jawaabteeda haddaan ku celiyo maa nazala min al-qur'aan al-kariim qabla al-hijra walow bighayri makkah saasay noqonaysaa. xadid mafhuum al-fiqhi. su'aasha xigta waxay ku leedahay fiqhi maxaa la dhahaa sheeg. ardayga jawaabta sax waxay noqonaysaa fiqhi waxaa la dhahaa huwa waa al-cilmu bil ahkaam ash-sharciyya in markaasi oo la barto ahkaamta sharciga ah al-amaliyya al-muktasaba min al-adillati at-tafsiiliyya. haddii aan ku celino qeexitaanka wuxuu noqonayaa huwa al-cilm bil ahkaam ash-sharciyya al-amaliyya al-muktasaba min al-adillati at-tafsiiliyya. su'aasha xigta ardayga waxay ku leedahay udkur sheeg aqsaam al-xadiis al-maqbuul. xadiiska markaasi maqbuulka aqsaamtiisa sheeg. xadiiska oo maqbuulka aqsaamtiisa waa 2 qaybood al-xadiis as-saxiix wal-xadiis al-xasan xadiis saxiix ah iyo xadiis xasan ah. qaarin bayna dalaaq as-sunni wa dalaaq al-bidci. waxaad markaasi oo ka doodaa oo aad isbarbar dhigtaa dalaaqa oo sunniga ah iyo midka bidciga ah. الطلاق السني وحالة أرضي هو الواقع على وجه الذي ندب إليه الشرع ومتك قرعي قابكي مركزي أو شرعي وجدي. الطلاق البدعين وحالة هو المخالف للشرع متك شرعي خلاف صن. سؤال شيختا أذكر شيخ على اسم الكامل للإمام الشافعي. إمام كلو مع إمام الشافعي مقعيسو دمسترن شيخ مقعيسو دمسترن أرضي وحاواي محمد بن إدريس الشافعي الله. سؤال شاقودن بيسا أرضي وحال ويدي يذكر شيخ أنواع الجنايات نوعية جناية جناية أما دنبيدو وحالوقة على نوع نوعان وعلى نوع وحين كليهين الجناية على نفس إن مركزي أو دنبي أو نفع على كيستو أما الجناية عنده الجناية على ما دون النفس إن مركزي أو لو واحد قدبو أو لجناية أو دبات لو كيستو نف وحكير أو كسوكي. waxaan filayaa arday inaad karteen jawaabihii aan ka bixinay su'aalihii halkan ku qornaa sidoo kalena aad ka faa'iideysan doontaan waxaan rajeynayaa imtixaanka aad geli doontaan inuu Ilaahay idin fududeeyo. hada wabillahi tawfiiq insha Allah.